barnaamijka shaqo qaran waxaa himiladiisa iyo hindisihiisa iska lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxay naga go'aana haddaynu kulmiyo nahay inaynu da'yarteenna faraha badan ee boqolkiiba 60 mustaqbalkooda ka talino, aqoontooda inaynu wanaajinno, akhlaaqdooda inaynu wanaajinno, mustaqbalkeenna maanta halkaynu taaganahay meel ka wanaagsan inaynu u saahmin ayaa ayna saaran. weliba xisbiga kulmiye iyo ninkii dalkan xilka doonaya qodobkaasaa u yaala. barnaamijka waxaa la sameeyey markaasi la bilaabay xarunta carbiska ee Daraweyne oo laga bilaabay meel bannaan. waxaa kaloo la dhisay xafiiskii hawsha ka howlgeli lahaa. dafcaddii ugu horreysay waxa ay soo galeen 2019 horraantiisii. waxaan dhalinyarada reer Somaliland ee danaynaysa inay ka qayb qaataan dafcadda saddexaad ee shaqo qaran ugu bushaareynaya in laga bilaabo maanta oo bishu tahay 10 bishii February 2021 ay bilaabantay isdiiwaangelintii ama codsiyadii dafcadda saddexaad ee shaqo qaran. waxaanay ku soo gabagaboobaysaa ama ku eg tahay 20 bisha February ee ku jiro. haddii alla yiraahdo dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa in muddada kooban oo 10 cisho ay ka faa'iideystaan cidii danaynaysa oo ay Play Store-ka kala soo degaan appkaas macluumaadka looga baahan yahay ee shuruudahana dhamaystiraan. barnaamijku waxa uu lahaa ujeedooyin fog oo ah sidii loo soo saari lahaa dhalinyaro muwaadiniina dal jecel. ujeedada ugu weyn ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah isbarashada ama isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliland ee deegaanada kala duwan. sanadkan shaqo qaran waxay soo kordhisay in la isku diiwaan geliyo qaab online ah, waxayna launch garaysay application mobile ah oo loogu talagalay inay dhammaan codsadayaasha barnaamijkani ay isku diiwaan geliyaan. application-kani wuxuu awood u lahaa inuu qabto dhammaan ciddii muwaadiniin aan ahayn, waxaana uu ku xidhnaa daytada national ID card-ka. qof waliba wuxuu isticmaalayay national ID number-ka, waxaanu meesha ka saarayay dhammaan ciddii aan ahayn muwaadiniin. taa kasoo wuxuu ka saarayay dhammaan shaqaalaha dawladda inay isdiiwaan geliyaan. sidoo kale wuxuu u diidayay application-kan inay isdiiwaan geliyaan dadka da'doodu ka weyn tahay 30 jir. application-ka markaad intaas soo dhammaysid waxaad u gudbisay inaad upload garaysid dhammaan documents-ka lagaaga baahan yahay, taasoo ay ka mid yihiin shahaadadaadii jaamacadda, shahaadadaadii caafimaadka iyo warqaddii dambi la'aanta. intaa marka aad samaysid application-ku wuxuu toos ugu gudbinayay daytadaada xarunta shaqo qaran. xarunta shaqo qaranna waxay awood u lahayd inay farafaagarayso dhammaan documents-ka aad soo gudbisay. intaa ka bacdi waxaa toos loogu wada xiriiriyay application-ka in lagu aqbalay meesha ay imtixaanka ku galaysid iyo dhammaan wixii macluumaada ee lagaaga baahnaa waxa lagu soo gudbinaya application-ka. sanadkani wuxuu aad uga duwanaa sanadadii hore in qaab aad u fudud ay ardaydu isku diiwaan gelinaysay, iyagoo meel kasta jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo gobollada dhammaantood waxay fursaddaa u heleen inay isdiiwaan geliyaan. application-kana u fududeeyey, waxaananu aad u soo dhaweynaynaa in application-kan la sii horumariyo. maanta oo taariikhda miilaadiga ay tahay 20kii bishii saddexaad 2021 waxaana soo gaadhay natiijadii imtixaankii loogu tartamayay dafcadda saddexaad ee shaqo qaran. ilaahay baa mahad leh. waxaanu halkan ka shaacinaynaa natiijadii imtixaanka oo qof kastaaba wixii uu keenay uu kaga bogan karo ama uu ka heli karo bogga xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo bogga Facebook-ga uu ku leeyahay xafiiska shaqo qaran oo qof kastaba natiijadii ka dheehan karo. inaan baa iigu jira dadkan maanta shaqo qaranta u baxaya. inankaasi wuxuu ka soo baxay jaamacadda Armas, wuxuu malaacamal ahaa imanka muddo sanadkii saddexaad inuu ku jira ama filaya intuu bilaacamal ahaa. intaa rajuun baanu qabno waxaanu lahayn inuu hooyo CV-giisa meel walba uu geystay, shirkad kasta wuu u dhiibay, welise ilaahay calafkiisa kama soo saarin. maanta waxaanu arkayaa halkan inay fursaddii ugu qaalisanayd uu saaka marayo. dhalinyarada
ama barbaarta shaqo qaran dafcadda saddexaad ee ku soo baxay tartankii ay u galeen haatan hortayda jooga oo waxaan idinku soo dhowaynaynaa kulliyadda carbiska shaqo qaran ee Dararweyne ku soo dhawaada deegaanka Dararweyne ku soo dhawaada kulliyadda intiinan isku gobol baa ka timaadeen gobolku meel ma wada degayo 10 baa u kala baxaysa 10 gobolladii ka horeeyay 10 qaybood baa u kala baxay 10 horimood baa kala gelaysan 10 horimood baa kala gashaan waxa looga jeedaa inay isla gashaan oo isbarataan ka badan ka yimid ka seela ka yimid ka meel kale ka yimid ka togdhar gobol walba ka yimid inay isbarataan sariirta ku xigtaa ma noqonayso gobolkaagii inaan gobol kale ka yimid buu noqonayaa كبود وريا هوي كبود وريا هوي وريا كبود وريا ولا ما تساعدوا وردود ولا ما تساعدوا وردود كبود وريا هوي كبود سقو ديال قروده ديال قروده سقو كبود سرا كبود سرا كبود تصوص سرا كبود سرا كبود لما كبود سرا كبود سقو ديال قروده انا نصور waxaanu kacnaa shantoo buura laga buro shaqada biitidii baanu diyaar garoobaynaa si degdeg ah waxaanu tukanaa salaada subax shantiyo barka waxaanu galnaa garoonka hadda waxaanu ka aaminsanahay inay tahay shaqo qaran xarunta shaqo qaran ee isugu yimaadee Dararweyne meesha ugu haboon ee dhalinyarada ugu kartida badan Soomaaliland ka soo baxayso sidoo kalena inay tahay meesha ay ka soo baxayaan hal abuurada iyo hogaamiyayaasha dalka sida ay dhacdayba waxyaabaha halkan lagu barto waxa kamid ah structure of stateskeenu qaabku u dhisan yahay marka laga hadlayo separation of powers dawladdu maxay qabataa oo sidee dawladdu u shaqaysaa waxa kale oo ku jira rule of law waxyaabaha ku jira waxa kamid ah public service-ka waxa la yiraahdo oo inta badan shaqaalaha dawladda u shaqeeya ayna aqoon badan u lahayn dawladduna kulley focus-ka waxay saartaa waa public horta sida caadiga laguma soo dhigto iskuulladeena waxaan la yiraahdaa wadaniyada ama civic education mid labaad ardayda waxa ka soo baxeen kulliyada kala duwan sida caafimaadka ardayga caafimaadku wax aqoona oo muu lahayn qaybaha dawladda
sharci dejinta fulinta waxaasoo dhan wuxuu bartay imika waax kasta oo dowladda ka mid ah waxay qabato iyo waxa ummadda ka sugaysay iyo sida loo maamulo wuxuu kaloo ogaaday imika waxa la yidhaha waa maxay citizenship baasaboor la qaataa muxuu yahay qofku inuu dal qura leeyahay waxa kaloo ayna ogeyn badankoodu waxa xaq dalkoogu iyo dadkoogu leeyihiin maanta waxay yaqaanaan waxa xaq loogu leeyahay iyo waxa xaq iyaga loogu leeyahay war kamay qabin shuruucda iyo kala dambeynta war kamay qabin inta badan dhibaatooyinka uu adduunka ku keenay qabyaaladu war saasa kamay qabin daraagiska inagu xeeran maandooriyayaasha iyo halista inagu hayaan war kamay qabin qof shaqaale dawladeeda iyo qof aan shaqaale dawladeed waxay ku kala duwan yihiin war saasa kamay qabin waajibaadka fuulay iyo sharafta uu leeyahay qof dawladdu shaqeeya muhiimadda markaa uu dastuurku leeyahay iyo shuruucda ka farcamta iyo muhiimadda aa idinku leedihiin iyo danaynta la danaynayo kulliyaddan iyo dhallinyarada ka soo baxda sidaa daraaddeed in shaqo qaran la sameeyo waxay ka mid tahay hal abuurka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi sidaa daraaddeed waxaa waajib noqotay in hal abuurkaasi runtii waxa weeyaan la xaqiijiyo idinkuna maanta aad tihiin difcaddii saddexaad waxayna ka mid tahay siyaasadaha cusub ee ay xukuumaddu leedahay ee qarankan lagu hormarinayo hay-adda shaqaalaha dowladda waxa ay dhalinyarada halkan ku jirta siisay tababar ku saabsan xeerka shaqaalaha dowladda ee cusub ee dhowaanta soo baxay xeerkaasay ku tababartay maadaama ay shaqaalo noqon doonaan dhalinyaradan shaqaalo dowladeed noqon doonaan waxaanu la kacnaa dayaxa waxaanu samaynaa jimicsiyo kala duwan annagoo gudaheena waajibaadka qaranka waxaanu nahay maanta waxaan nahay qof la dareemaya ciidanku wuxuu yahay maanta waxaanu diyaar u nahay difaaca ciidanka goor kasta iyo goob kasta oona la geeyo annagoo gudaheena waajibaadka qaranka barnaamijkan waxyaalada ugu waaweyn ee uu la dagaalamayo waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo qoqobka qaadka tahriibta ardaydu waxay ka kala yimaadeen min bari ilaa galbeed qofna qof ma aqaanin waxa uu ii sahlay inaan barto dadyo kala duwan oo ku kala nool inta ka kooban tahay jamhuuriyadda Somaliland waxay imikana marayaan inay isku dhaqan noqdeen gobolnimadii ay ka baxeen ka yimaadeen gobolnimadii ay joogaan meel ay kaga abtirsadaan horimaha la yidhaahdo ay kala yihiin sida koowaad labaad saddexaad afraad maanta khamiistu waa maalin ka duwan gebi ahaanba maalmaha kale maanta khamiistu waa maalin u astaysan maalin nadaafadeed nadaafadaas oo ah mid deegaanka guud ahaan lagu qaadayo mid guryaha la seexdo lagu qaadayo iyo mid walba iyo mid qof walba gaarkiisa u saaran runtii waana lagu kormeeraa nadaafadaha kala duwan aynu samayno taliye anagoo fulinayna markii aad nafurtay gudanayna waajibaadkaygii shaqo waxaan diyaar u nahay inaad lagu kormeerto howlmaalmeedkaygii nadaafadda ahaa iyagoo taliyayaasha xeradu markay nagu kormeynayaan siinaya mudnaanta sida loo kala horeeyo iyo sida lagu kala duwan yahay nadaafadda
waxa kale oo wasaaradda caafimaadku waxay wixii caafimaadka la xidhiidha ay ka mid tahay malaariyada, buufinta, kaneecada, siinta adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin uu ka mid yahay COVID-19 talaalkiisa. shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf laho dalkay dhiigow shuban shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf laho dalkay dhiigow shuban dareenkooda sharnicib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma rida dareenkooda sharnicib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma ridan markii halkan la yimi iyadoo markii la joogay magaalooyinka mashquul badan lagu jiray dhalinyartu iyo barbaartu waxay fursad u heshay inay shantoodii salaadood waqtigooda tukadaan kuna tukadaan jamaca iyagoo la kaashanaya macallimiintooda oo kicinaysa oo xilli hore soo faraysa waxa la shicnadu waxay sheegtaa qofku 40 cisho hadduu joogteeyo salaada faralka abid inaanu dib uga tegin waxa kale oo halka ku jirta maanta jimcaha inaanu fasaxnahay oo waxa weeyaan si fiican loo cibaadeysto cibaadada jimcaha la oogo ayna oogaan arday kamid ah carbiska shaqo qaran يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون waxaan qabayada meesha ku baranay inaad time ku shaqaysid oo wax walba xerada markaa ku jirtid time bay ku soconaysaa haddaad cunaysid time bay ku shaqaynaysaa haddaad garoonka imanaysid time bay ku soconaysaa haddaad shaqooyin gaar ah haysatid time baa ku qabsanaysaa dharkaaga markaa meedhanaysid time baa ku qabsanaysaa daadfoor halkan waxaan kala baxaynay waxyaalo ugu muhiimsan ka mid ah inaan time ku shaqaysano oo time ku qabsano dhalinyaradan dafcadda saddexaad ee shaqo qaran waxay kaga nasiib badan yihiin dafcadihii hore waxay heleen waxa aanay heli jirin dafcadihii ka horreeyey koowaad iyo labaad waxaa ka mid ah biro jimicsi oo loo keenay ay ku jimicsadaan waxyaabahaasoo dhan kuwii ka horreeyey may ahayn taas ayay nasiib u heleen runtii macallimiintoodaan runtii aad iyo aad ugu dadaashay oo tababarkooga aad ugu dadaashay sidoo kale kuliyadda waxaa jooga shaqaalaha rayida oo tiradoodu dhan tahay ilaa 22 shaqaale oo ka shaqeeya shaqada ka socota markaasi kuliyadda waxayna u qaybsan yihiin shaqaalihii cuntada kuugtii caawiyaashoodii sidoo kale waxaa jira shaqaale kale ka shaqeeya dhirta dhaqaaleynteeda iyo waraabinteeda
tababarada jindhiska ah ee dhalinyaradu halkan lagu siiya waxaa ka mid ah ciyaaraha oo loo sameeyo horin walba tiim u gaara tiimamkaasoo dhexdooda tartama ilaa ay ka gaadhayaan koobka ay kala qaadanayaan